saan u joogay baa indhihii beelay aan waxba arki waayey hadda qofku wuxuu kula dhaqaaqaa waa indhaha indhihii markaan beelayna waxa weeye hadda waxaan noqday guri la joog intaana dhex fadhiyaa reerkiina hadda waad garan kadhaa baahidiisa iyo wuxuu u baahan yahay qoftaas hadda xanuunsatay oo halkaan iga fadhida oo caruurta dhashay baa waxa weeye reerka u adeegi jidhay reerkii hadday u adeegi jidhay reer hadda loo dhaqaaqo ahaayo booskaygii bay bedeshay ayadiina hadda indhaweed xanuunkaana u yimid say u joogtay meesha ah guriga ah say u joogtay horta markii hore waxaa laga qabtay dhinac dheg baa laga qabtay haddana hungurigii baa laga qabtay hungurigii baa waxa weeye marka waxbay liqi weyday isbitaal baan mar la geeyey meel baaratiina waxa uu uga suurtoobayna ma jiraan marka waxa weeye hadda hawsha noogu daran xanuunkaas oo yimid annagii iyo hadda waxa weeye iska tawsoosnay anigu hadda sida kale waa u dhaqdhaqaaqi lahaa laakiin waxa ay helay waxa weeye waa indhahaas xukunka ilaahay isaga yimid ayadiina waxa weeye hadda marka nafteedu qof aan wax la qaynba hadda ilaahay qof walba markuu dhimanaya laakiin hadda ayadii aan waxba ku noolayn haddii caruurtii iyo wixii iyo caafimaadkiisii iyo waxa weeye amuurahaas baa jira marka hadda intaan idin sheegayo dhibaatadu ayna hayso waa intaas waxaan marka idin sheegayaa annagu wixii marka muslin ah oo waxaan uga baahannahay wixii ay heli karaan inay nagu sadaqaystaan iyadoo ayna tahay hadda dadkii waxa weeye ay ku bixi jidhay sadaqadu qof aan dhaqdhaqaaqayn oo aan waxa weeye wax arkayn oo aan wax soo qabsanayn oo aan shaqaynayn xoolana u xaraysnayn hadda wuxuu ku noolaan kara waa ogtay taas waa qodobka ugu horeeya qodobka labaad oo ku xigana waxa weeye qofkii kale oo hadda hawshii iga dambeeyay qaban lahaa oo ayadiina aniga kaar iguma dheganaa wax kaar ah oo igu dhegan ma jiro waxa weeye wuxuu ilaahay indhahaas baan kaliyan ka xanuunsaday ayadaas waxa weeye kaar baa ku dhegan ayadii baa marka waxay rabtaaba daaweyn iyo bal wax la iska daayo dhaqdhaqaaq iyo wax meel geeya dhibaatada marka noogu badan oo annagana haysato aan ka hadlaynaa waa intaas farxiyo gabar la yiraahdo baa waxa weeye hadduu alla kuu roon yahay gabar aanu derisnahay akhbaartii gaarsiisay qoftaasu lacag bay noo soo didhay ilaahay waxsan ilaahay ha ugu bedelo ilaahay waxsan ha ugu bedelo qoftaas maahana wax kale oo annaga naqaabila ama naga naxa ama wax noo soo magaysiiya ma hayno anigu marka intaan idin sheegayaa waa intaas qoftaan xanuunsanna hadday iiga hadduu alla kuu roon yahay ay halli ka dhaho hadda waa u dhiibayaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي وما هذا أنا وحنونك إلهي كان وانكو قناعسناي هذا بيشان هذا اللي تشوفه وحبا ملقن دون الله يغايا وحان لقنا مجراني وحنون سناي إلهي إسلام كيسوا وأباهناي إلهي وما هذا الكلام ما بدين كره هذا اللي ما صبيح كره انت عكبدا maxaa waan xanuunsanahay doonta ay xiran inta islaamana ha ii soo ducayso ilaahay inuu doontaydana ii furo caafimaad khayr qabanaysiiyo aniga xaaladayda halkaasay maraysaa qof sii hadli kadhana maahi waa bilaahi towfiiq dadka muslimka ah oo ama dibad ha joogeen ama daakhil ha joogeen waxa weeye waxaan ka codsanaynaa inay hadduu alla kuu roon yahay waxa weeye dadka tabaalaysan baan nahay waxay noo qaban karaan inay noo dadaalaan hadday qofta xanuunsan isbitaal geyn karaan ayadaa ilaa dalo nabar ku dhegan nabar iguma dheganaa indhahaasaan macnaha maahane nabar iguma dheganaa ayada nabar baa ku dhegan hadday noo wada heli karaanna hadda waxa weeye inayna wada geeyaan anigu hadda weliba waxaan ahay nin hadda wax iska dhowrkaas laakiin qoftaas nabar baa ku dhegan wixii muslima oo waxaan doonaynaa inay noo soo dadaalaan inay waxa weeye gacan qabtaan annaguna waxa weeye waa u ducaynaynaa ayaguna ajir iyo xasanaad bay ka helayaan